majaajiliistaha caanka ah ee Ibraahim Mustafa isla mar ahaantaana ay Soomaalidu u taqaano Basadiir ayaa maanta soo gaadhay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Basadiir oo u dhashay dalka Tansaaniya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde maanta ku soo dhaweeyay saaxiibkii Farxaan Diraac oo wiil dhalinyaro ah isla mar ahaantaana af Soomaali u bedela muuqaalada Basadiir oo si weyn loogu wadaago baraha bulshada. sidoo kale waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed iyo wariyeyaal kuwaas oo si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ibraahim Mustafa oo loo garan og yahay Basadiir socdaalkiisa Muqdisho waa mid hore loo shaaciyay isla mar ahaantaana si aad ah loo hadalhayay maalmahan oo baraha bulshada aad la iskula dhexmarayay. sidoo kale waxa uu Basadiir inta uu Muqdisho jooga qaban doonaa bandhigyo waaweyn maadaama oo uu sidoo kale yahay fanaan caan ku ah raabka sidoo kalena uu dadweynaha la wadaagi doono muuqaallo xiiso leh kana mid ah kuwiisa majaajilada ah. Farxaan Diraac oo ka hadlay munaasabadda soo dhaweyntiisa ayaa shaaca ka qaaday in uu ku faraxsan yahay in uu caasimadda Muqdisho ku soo dhaweeyay saaxiibkii Basadiir maadaama oo uu isagu sabab u noqday in ay Soomaali badan barato majaajiliista Ibraahim Mustafa Basadiir. si kastaba ha ahaatee Basadiir ayaa horay u shaaciyay inuu jeclaan lahaa in uu mar uun yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya taas oo u suurta gashay kadib casuumaad uu u fidiyay Farxaan Diraac oo ah wiilka inta badan turjuma muuqaalada Ibraahim Mustafa ee loo yaqaano Basadiir. dhanka kale gabdhaha ku weheliyay muuqaalada Basadiir kuwaasi oo uu Farxaan Diraac ula baxay Idil iyo Astur iyo waliba Isir ayaan sidoo kale ku helinin safarka Basadiir. hadalhaynta ugu badan ee maanta baraha bulshada lagu hadalhayay ayaa ahayd sababta uu u soo kaxaysan waayay Basadiir dumarka la matala filimada. Cha kwanza nafurahi sana Somali kwa mimi siwezi nikajiita King Pussy bila yeye kunifanya nisijulikane Somali. midda ugu horeysa Soomaaliya waan ku faraxsanahay aniga ma isugu yeeri karo King Pussy la'aantiin in Soomaaliya la iga aqoonsado isaga u sabab ah shaqo aad u weyn ayuu qabtay wuxuu sabab u ahaa in Elborka la igu soo dhaweeyo sidii madaxweynaha oo kale taageerayaasha dhan Elborka ayay yimaadeen waxayna noo taageereen si lama filaan ah Soomaaliya ayay igu soo dhaweeyeen Soomaaliya ayaan soo arkay oo aad u dhisantay isagaana sabab u ah in Soomaaliya la iga aqoonsado ma dhihi karo Soomaaliya qof kale ayaan ku haystaa waqtigan hadda la joogo isaga ayaa ii walaal iyo saaxiib ii ah jiifkayga cunnadeeda iyo nolosheeda dhan ayuu ka mas'uul yahay ninkii aniga wax igaga baahan Farxaan Diraac ayuu soo marayaa waan ku faraxsanahay sida Soomaaliya la igu soo dhaweeyay ilaa hadda ma aaminsani in Soomaaliya sidan oo dhan la iga yaqaano.